Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta sharafta leh ee ku xiran Somali Business. Maanta barnaamijkeena waxaan nooga hadli doonaa daroogada opioid. Daroogada opioid waxay fara badan ku haysaa dadka Mareykanka. Waxaa jira sababo badan oo opioidska ay u dilayaan dad badan. Xalkeedan ma muuqdo. Dhawaan ayaa la shaaciyay in 96 meelood meel aad halis ugu jirto inaad u dhimato cudurka opioidska. Taasoo tiro koob ahaan aad uga sareyso shilalka baabuurta. Hadda inteena badan ma ahan inay ka walwalaan inaan u dhimano opioidska sababtoo ah ma isticmaalno opioids. Laakiin sida iska cad qaar badan oo ka mid ah dadka Mareykanka ayaa ku tiirsan wax walba oo laga helo daawooyinka la isku qoro sida Vicodin iyo Oxycodone ilaa heroin iyo kuwa ugu halista badan dhammaantood oo ah fentanyl oo la mid ah morphine laakiin 100 jeer ka xoog badan. Hadda markay tahay xagga siyaasadda ma galayno wax badan, laakiin waxay ahaan lahayd cadaalad inaan tilmaamo in marka loo eego dowladda Mareykanka ilaa 80% dhammaan opioidska ay isticmaaleen dadka Mareykanka ahi inay ka soo galeen xadka koonfurta. Inta badan waxay ka timaadaa Shiinaha. Muuqaalkan fiidiyowga ah kuma noqon doono wax lagu qoslo, laakiin waxaan dul maraynaa 10 gobol ee Mareykanka ah oo leh tirada ugu badan ee dhimashada la xiriirta opioidka sanad walba. Waxaan ka bilaabaynaa Pennsylvania oo ah kaalinta 10aad marka loo eego tirada dadka degan ee u dhinta waxyeelada opioidka sanad walba. Sanadkii hore in ka badan 3,000 oo qof ayaa opioid ugu dhintay gobolka Keystone. Siday wax u xumaadeen waxaa cadeynaya sida xad dhaafka ah ee loo isticmaalo daawada NAX taasoo loo qoro dadka daawada iska badiya ama overdose. Gobolka Pennsylvania ayaa wax badan ka qabtay daroogada taasoo dhimashadeeda hoos u dhigtay. Number 9 Kentucky. Hadda dadku waxay u dhimanayaan opioid si ka badan sidii sanadkii hore. 30% dhimashada waxaa sababa heroin, 34% fentanyl iyo 28% daawada loo yaqaan antidepressant Xanax. Tiro badan oo macdan qodayaal ah ayaa loo qoray xanuun baabi'iyaal dhaawacyada iyo xanuunka soo gaaray. Tani waxay keentay in lagu tiirsanaado. Number 8 Connecticut. Waxaa dhib weyn u geystay opioidka. Xaqiiqdii kaliya inta soo hartay liiska waxay ku yaalaan waqooyi bare dalka Mareykanka. Ilaa heerka dhimashada uu sababay opioidka ee ka dhacay Connecticut uu ku dhawaaday heerka celceliska qaranka. Markaa wixii ka dambeeyay sanadkii 2016 opioidka dhimashadiisu waa si 4 jibaarantay. Waxay noqotay 100,000 ee qof in 25 ka mid ah ay u dhintaan opioid, taasoo ka badan 2 laab celceliska qaranka. Number 7 Maine. Waxay sidoo kale aragtay dhibaatada opioidka inay ka sii darayso. Dhibaatada weyn ee Maine waa daawo qorista ka timaado dhaqaatiirta. 4 sano ka hor dhaqaatiirta Maine waxay qoreen 1 milyan oo daawooyin kuwa xanuun joojiyaha ah. Waxaana degan gobolka oo dhan 1.2 milyan oo qof. Sanadkii la soo dhaafay ku dhawaad 1,000 caruur ah ayaa u dhintay daroogada xad dhaafka ah ee jasiiradda Rhode. Sanadkii la soo dhaafay ku dhawaad 1,000 caruur ah oo ku nool Maine ayaa loo gudbiyay maandooriyaal koor inta aysan dhalan. Number 6 in ka badan 400 oo qof ayaa u dhintay daroogada xad dhaafka ah ee jasiiradda Rhode sanadkii la soo dhaafay. In ka badan kala bar dadkaas u dhintay fentanyl daroogada oo la iska badiyo ayaa sabab u ahaa kala bar shilalka gobolka. Qareenka guud ee Massachusetts wuxuu dacweynayaa sameeyaha xanuun joojiyaha Purdue sababtoo ah macluumaad marin habaabin ah ayuu sameeyay. Iibka daawooyinka ayaa saameyn ku leh gobolka oo ay dhaqaale ahaan ku tiirsan yihiin. Cimri nololeedka Mareykanka ayaa hoos u dhacay dhowrkii sano ee la soo dhaafay, laakiin Massachusetts waxay hoos u dhigtay isbeddelkaas qayb ka mid ah heerka isdilka oo hooseeya. Massachusetts waxay lahaan lahayd cimri dhererka ugu dheer ee dalka Mareykanka haddii aysan ahaan lahayn dhibaatada gobolka ee opioid. Number 4 xaaladdu way xun tahay Maryland. Waaxda caafimaadka ee Maryland waxay sheegaysaa in tirada dhimashada ay sababtay daroogada si aan ula kac ahayn ku dhawaad 2,000 oo qof ay dishay, taasoo ka korortay 10%
sanadkii la soo dhaafay. Magaalada Maryland boqolkiiba 90 dhimashada waxay la xiriirtaa fentanyl. Sidaa darteed, dad badan oo u dhimanaya cudurka opioid ee xad-dhaafka ah ee Maryland ayaa xitaa isku dayin inay cunaan opioid. Waxay kaliya ay isku dayaan inay helaan marijuana ama xitaa cocaine. Number 3, Ohio. Ohio waa gobolka kaliya ee ku yaal galbeedka dhexe ee Mareykanka. Waxay hogaamisaa xagga dhimashada marka laga hadlayo opioidka. Sababta kaliya ee ay Ohio ugu sarreyn liiskan waa in Ohio ay leedahay dad aad u tiro badan marka loo eego labada gobol ee kale ee ka sarreeya xagga liiska. Dhimashada heroin ayaa kor u dhaaftay 20% sanadkoo dhan, halka dhimashada fentanyl ay laabantay. Ohio ayaa leh tirada ugu badan ee dhimashada daroogada ee ka badan wadanka. Number 2, New Hampshire. Waxaa jiray kororka ugu weyn ee dhimashada opioid ee Mareykanka tan iyo sanadkii 2012. In ka badan 600 oo qof ayaa u dhintay daroogada xad-dhaafka ah sanadkii la soo dhaafay, iyo dhimashada opioid ee xad-dhaafka ah ayaa kor u kacday 191% 5 sano ee la soo dhaafay. Dhibaatada mashaqada opioid waxay noqotay mid guud ahaan gobolka jahwareer ku riday. Magaalada New Hampshire 53% dadka degan New Hampshire waxay leeyihiin adeegsiga daroogada ayaa ah dhibaatada ugu weyn ee gobolka. New Hampshire waa gobolka ugu taajirsan ahna gobolka ugu heer hooseeya xagga shaqo la'aanta, gobolka oo leh heerka dhimashada ugu badan wadanka. Galbeedka Virginia ayaa lid ku ah, waa gobol aad u liito oo fursado yar leh. Magaalo yar oo ku taal West Virginia oo ah 3200 oo qof ayaa lahayd 21 milyan oo xanuun joojiyaal ah oo dhex taallay. Taasi waa in ka badan 6500 oo kaniini qofkiiba. Dowladda Mareykanka waxay ahayd inay soo gasho oo ka caawiso galbeedka Virginia maalgelinta xarumaha daaweynta. Sidaad ka arki karto qariiradan, opioid wuxuu diiradda saaray dhowr gobol oo dalka ah, iyo sida aad arki karto Mareykanku wuxuu adduunka ugu horeeyaa dhimashada opioid. Waa xaalad degdeg ah oo qaran oo u baahan in wax laga qabto. Daawadayaal, intaas waxaan u eeg barnaamijkeennii mar walba ku xirnaada Somali Business.